heshiiska qaramada midoobay oo doorka haweenka kor loogu soo qaadayay. Waddankeena horumar fiican buu sameeyay, laakiin ma gaarsiisano heerkii haweenka sidii aan ka rabnay ma gaarsiisano. Gabdhaheena Suudaan waxaan u taaganahay sidii aan u horumarin lahayn ama aan wax uga qaban lahayn dadka naafada ah guud ahaan, gaar ahaana dadkii burburka saameeyay oo dhibka ku dhacay inaan u helno sidii boogtooda loo dhayi lahaa, sidii maxay ahaydey boggooda burcad la iskugu marin lahaa, sidii ay u saamixi lahaayeen wixii dhibka u geystay si nabad waarta loo helo. Tiiraan bixinta laba nooc oo sameeyna waxa uu sameeynaa dad baahiyaha gaarka qaba ku dhasheen iyo dad dhibaatada iyagoon ku dhalanin dib ka soo gaaray. Marka u soo gudubna arinta kale oo dadka aan ku dhalanin oo dhibaatada soo gaartay iyagana laba qaybood oo kala qaybinay. Labada qaybta koowaad waa dad dhibaatada ka soo gaartay qarax ku dhacay, halka kuwa kale ay yihiin dhibaatooyinka ka soo gaaray xabad. Waxa uu sameeynaa barnaamij nabadeen, qofka sidoo qof dhibaato markuu u geysto sidoo xabadoo kale qof ku dhiftay asagoo wax ka dhacay amba asagoo qofka iskhilaafeen oo kale sidee doontaba ha noqotee qofkaas oo kaleeto waxa laga yaabaa qofkii wax ku sameeyay inuu colaad u qaado, qofkii isku dayo sidoo qofka ugu aarsan lahaa oo biri u noqon qofkii sidoo adigu ku yeelo kaleeto adigana yeel qofka inuu ku fikiro.